aniga xijaar iyo fahad waxba la hadli maayo laakiin wadadaasaa u furan sarkaal kasta oo rajo iska qabo wadadaasaa u furan ehelka iyo qaraabada iyo asxaabta farxaan iyo odowaa halkaa ku qabo mudane madaxweyne waad mahadsan tahay aad iyo aad labada wiil ee soo dhaweysatay aad leedahay jenaraal odowaa iyo jenaraal farxaan qaroole labada taliye kaleeto ayaguna ku fogeynaysid ee fahad yaasiin iyo taliye xijaar halkaa waxay caddeynaysaa labada adiga kula reerka inaad wiilal ka dhigatay labada taliye kaleeto beelo Soomaaliyeed oo kale ka soo jeedana aad leedahay si sid iga dagareeya cadaladan gaarsiiye beach walba iyo meel walba ku tuura ummadda Soomaaliyeed wixii shalay soo dhacay inta badan waa hilmaamaan laakiin idaacadda Duqbilow ma hilmaanto siyaasiga Soomaaliyeed wixii uu meel dhigtay ee u duubnaa baan anagu dib ugu soo celinaa waxaana ummadda Soomaaliyeed dareensiinaa shalay iyo maanta ummadda Soomaaliyeed inay aqligooda la kubciyo dareemaan waxa magaranaysaa saxda iyo waxaan saxdeen aad iyo aad dhamaantiin sidaad loo socotaan mudane maxamed cabdullaahi farmaajo markuu dalka hogaaminayay ee uu madaxweynaha ka ahaa magaalada muqdisho waxay ahayd magaalooyinka Soomaaliya magaalada ugu amnisan waxaan heerka gaarsiiyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada booliska iyo ciidamada sirdoonka xasan sheekh maxamuud waqtiga ayada wuxuu ahaa nin mucaarade wuxuu ahaa nin aad iyo aad nabadaas iyo magaranaysaa dawladnimadaasi aad u dhibaysay saad la socotaan labadii bilood ee hadda uu xilka qabtay xasan sheekh maxamuud magaalada muqdisho waxa ka bilowday dil iyo dhac waxa kaleeto ku soo kordhay ummadda Soomaaliyeed aysan horay macnaha aysan ula qabsanin in muwaadin Soomaaliyeed oo gabar iyo wiilba in la afduubto reerkiisa la soo waco haday qurbaha joogan iyo haday gudaha joogan la yiraahdo hebel ama qofkiini annagu ayuu noo afduuban yahay waxaan idinka doonaynaa dhaqaale Soomaaliya arintaasi waa ugu bay ku tahay arintana waxay bilaabatay inta uu xukunka la wareegay madaxweynaha cusub xasan sheekh maxamuud waxaan doonayaa asagoo maalin dhaweeto masaajid ka qudbeenayo arintan hadda aan ka hadlay iyo amni daradan ku soo kordhay magaalada muqdisho iyo caasimadda dalkana markaas address garanayo ayaan doonayaa marka koobaad inaan idin tuuso bal fadlan wax yar idinko mahadsan ila dhageysto ila daawad telefonka ka qaadanayo hooyada jidka maraysa ama aabbaha jidka marayo gabadha maxaan ku raad dukaanka rubaca sokorta looga diray kun gashan wada ka qaadanayo dadka muqdisho waxaan leeyahay dib ha isugu noqdaan dawladda waxaa ka go'an in amniga la sugaa ka go'an waa saxeynaa waa la daba socdaa waa la toosinayaa waa hadduu ciqaab mudan yahay waa la ciqaabayaa askariga qaldan sarkaalka qaldan waa la toosinaa waa la daba socdaa dhibkoodna wada haysto ma aha dhinaca amniga bes qaladaad badan oo kaloo askariga naftiisa xataa qaladaad ku maalmo badan ka dhacaan waan ognahay muqdisho waxaan leeyahay dib ha isugu noqdaan dawladda waxaa ka go'an in amniga la sugaa ka go'an aad iyo aad waa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo reer muqdisho iyo amni darrada magaalada muqdisho ku soo kordhay ka hadlayo aad iyo aad waxaan rabaa marka ummadda Soomaaliyeed bal inaan maskaxdooda dib u celiyo u muraajaceeyo cadaaladahan oo magaranaysaa ay duubeen nimanka siyaasiyiinta especially madaxweynaha hadda xilka hayo waagu mucaaradka ahaa asagoo ciidamada amniga qaranka Soomaaliyeed siyaasadeynayo asagoo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qabiil u kala furfurayo asagoo ciidamada amniga Soomaaliyeed ee sugaya amniga caasimadda macnaha mid walba target gareenayo ciidan walba iyo darajadiisana ku target gareenayo uga digayo haday amniga dalka wax ka qabtaan ama ay shaqadooda waajibaadka gutaan in berrita lagu la xisaabtami doono marka ninkii asaga ahaa ee nooca u hadlayay yaa ugu dambeyntii wuxuu noqday madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed marka xasan oo waxaan rabaa inaan idin tuso ciidamada xoogga dalka ama ciidamada amniga qaranka ee ku sugan caasimadda u sheegayo haddii ay magaranaysaa waajibaadka dastuuriga dalkooda uu amraya ay qabsadaan in macnaha askarigaasi si shakhsi loola xisaabtamayo marka waan gali doonaa arintaasi waan analyze gareyn doonaa marka koowaad waxaan doonayaa bal inaan idin tuso xasan oo marka ciidamada u sheegay haday shaqadooda qabsadaan in macnaha shakhsi
loola xisaabtami doono bal wax yar la daawada idinkoo maasan aad iyo aad maanta 10 sano 20 sano ka bacdi xataa sharci gafidaas dacwadeedu waa ku taagnaanay marka saraakiisha horena waa ula hadalna wiilasheena maantana waa ku celinayna mar kale waxa la idinku amraaya ee sharciga aan waafaqsanayn ma yeeli kartiin hadaa yeeshiin mas'uuliyad shakhsi ah nin dambi galay oo dambiile ahaa tahay ninkan madaxda ana waa tagayaa meesha ma joogayo maanta haduu joogo biri joogo bisha dambe ma sii joogayo waqtiga doontaa noqotay adigana waad joogaysaa dhalinyaro tahay weliba ka fiirso ficiladan aad iyo aad qofkaad dhegaysanaysaan ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed uga digaya hadday waajibaadkooda shaqo qabsadaan ama amniga caasimadda ay wax ka qabtaan in macnaha askariga si shakhsi ah loola xisaabtami doono in askariga ma garanaysaa mustaqbalkiisa ay dhibaato ay u imaan doonto in ma garanaysaa askariga Soomaaliyeed ee cadowga ama dadka amni darrada sameeyo haddii uu isku dayo inuu waajibaadka qaran ee loo dhaariyo qabto in ma garanaysaa lagula xisaabtami doono askariga ku dhiirigelin waa madaxweynaha hadda weeyaan laakiin markaa madaxweyne ma ahayn askariga markaa ku dhiirigelinayo haddii uu shaqadiisa qabsado in si shakhsiyan ah qofka uu yahay loola xisaabtami doono oo askari dawlad ka tirsan aan loola xisaabtamayn marka askarigii uu amarkan uu siiyey Xasan ee uu sidaa u hadlayay ee uu yiri macnaha meesha aad joogtid baa lagu imaan doonaa weeyaan askarta maanta Muqdisho amnigeeda laga filayo inay sugaan waxa dareemaynaa ninkii asaga ahaa ee sidaa u hadlayay ayaa madaxweyne noqday waxaan arkaynaa ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed amarkii uu siinayay iyo dhaartii uu idaacadaha u soo marinayay inay fulinayaan bad dareemaysaa oo sababtoo askariga maanta isku dayo amniga caasimadda Muqdisho inuu wax ka qabto ama uu magaranaysaa ka hortago in macnaha Xasan uu hore uga digay haddana madaxweyne yahay oo uu shakhsiga askariga shakhsi ahaan loola xisaabtamay sababtoo Xasan maanta saa madaxweyne marka ciidamadii uu shalay gowaabiyay uu yiri haddii aad ka hortagtaan dambiyada ama haddii aad ma garanaysaa isku daydaan inaad qarankiina wax u qabataan dhibaato idinka la gaarsiin doono mustaqbalkiina ay dhibayso marka askartii ayaga ahayd buu maanta Xasan madaxweyne u yahay askartii ayaga ahayd buu maanta wuxuu ka filayaa inay amniga caasimadda wax ka qabtaan waa arrin aad iyo aad macnaha gorfeenteedo ma garanaysaa u adag tahay ninkii baa madaxweynaha ninkii baa caasimadii maanta ma garanaysaa ka taliyo ninkii baa ciidamadii uu shalay u digayay ee digniinta uu siiyay ee uu dhiirigeliyay maanta taliye ciidan u ah marka askariga Soomaaliyeed sida ummadda Soomaaliyeed aqligooda u shaqeynaya askarigii shalay la yiri haddaad amniga qarankiisa wax ka qabatid ama aad isxilqaantid ama aad amniga caasimadda sugtid waxa weeye amar qaldan baad qaadanaysaa oo qofka dib u geysatay si shakhsiyan ah yaa lagula xisaabtamayaa marka waxaa muuqato in wixii uu karsaday ee uu dabka saartay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inay maanta ma garanaysaa uu cunayo oo miraheeda uu guranayaa marka madaxweyne Xasan halka ku muusan keen ma ahayn shakhsi معارضة وهل مرة أم إذا ماذا هذا الكجتري أما مجرد سهل اللي ما هو وحنا نين مالين والبا إذا عدى وتاجن وحنا نين مالين والبيتو مجرد ساي إذا ماذا حقوق الدولة الصومالية واجبات كوديني جوتان كعب سجلي دري ما أنت نسأ ماذا حوينا وحارب كليب كره أو إن الدوسيو بالفضل وحير إلى الدعوة ديكم مسألة ديال وخلط لجوم أمريكا خلط شرع الدرة لجوم أمريكا دستور كنا تقع عيارتي أو كل الدش لجوم أمريكا gacan ku dhiigle inaan noqotidna laguma amri karo gacan ku dhiigle inaan noqotid laguma amri karo saraakiisha ciidamada hogaaminaysa waxaan leenahay yaraaw weynaaw sarkaal hoose noqo sarkaal xigeen noqo askari qoristo jidka taagan noqo waxaad samaynaysa ka fiirso hebelaa ilahay hadhow iyo hebelaa ay ahayd kuma anfacayso mustaqbalaad leedahay weligaad joogi doontaa شخصيات دقيقة إنسان ومدحونا قرن كالصوماليات وأنا قاعد عجلتي بالله سكوسو أركتين إذا ما دي تلياشة حوق دلك الصوماليات يبوليسكا كلا جعلادي الله بدي وأديرك وها إسكوريرك هاي يعني باش السجا وكسو جيدو جوني ذا كنكتي تلياشة كلا إذا ما الصوماليات بيلها كلا كسو جيدنا سياسير لوده هي معناها كوا يقدر نكى بمانت مركب مدحونا سيدا على الصعطان أو مانت مالمهن إذا عدها كدا ويشين إن عاصمة مقدشو أفضوب بدن وكسر إن عاصمة مقدشو أم الدراء حوجني كدرت إن معناه هويون كصوماليات ذهب كلجو جوري إن مجرد ساي مواطنين الصوماليات اللي الدوري دولة إني أمن جودة سكتو مجرد ساي مالين عد لجو توجري واحد ريمي سامركا إن وحنا ودن ماشى كسو كركرين يماشى كي مادين إن حديا تقف سياسة التحليلية
nin fahansan ama shakhsi ama qof dumar oo fahansan ama nin rago fahansan baad noqonaysaa sababtoo ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud ciidamada uu maanta u talinayo waa ciidamadii uu shalay warbixinadan hadda soo daawateen ku goobaabinaya ee askariga ku orayay haddii aad shaqo qaran qabatid si shakhsiyan baa lagula xisaabtamaya askariga Soomaaliyeed marka madaxweynihii hore uu sida ku yiri maantana uu madaxweynaha noqdo askariga kalsooni uu ku shaqeeyay male sababtoo hadalkii xasan weeyaan kan hanaan haddeedin daawasiyay ee horena loo dhageystay askariga kalsooni fiican oo uu shaqadiisa ku qabsado madaxweynaha hadda xilka hayo waagu mucaaradka ma uusan ee asagana kama uusan fikirin in macnaha mucaaradadan iyo magaranaysa amniga qaranka ay kala duwan yihiin oo amniga wax la siyaasadeeyo aysan ahayn marka maanta caasimadda dhibka ka jiro iyo magaranaysa amni darrada ka jirto waa askartii uu niyadda xasan ka dilay waa askartii uu xasan ku goobaabiyay uu yiri haddii aad shaqo qaran qabataan haddii aad amniga sugtaan haddii aad magaranaysa ka hortagtaan argagixisada ama tugada ka hortagtaan ama isku daydaan qofka wax dhibaateenayo inaad soo qabataan waa la idin xisaabtami doonaa askariga marka dee madaxweynahoodii mar hadduu ku yiri sida askariga waa inuu baqaa waa inuu magaranaysa amar khaldan ha qaadan ama amar khaldan ama amar saxan ha noqdo askariga mar walba waxa waajib ku ah inuu amniga qaranka u sugo laakiin askari madaxweynaha maanta xilka hayo uu shalay si toos ah ugu sheegay oo maantana magaranaysa isaan la socon meesh laga doonayo amniga qaranka inuu dajiyo hagaajiyo safarada ku maqan habeenaya maalin safrayo xaqiiqda dhabta waxay tahay xasanow kaliibkan iyo cajalada waxaan ugu talagalay way ku hilmaasiyeen ama xilbay ka doonayaan waa isilmaanta meel dib u heshiisiin umada Soomaaliyeed siyaasadii hore iyo siyaasadda dambe ay isaga qabansiisay male argoos siyaasadeed baad gashay bursiga waxaan loo joogin baad gashay ciidamadan aad ka sugaysid inay amniga caasimadda sugaan waad ciidamadii aad shalay ku lahayd qoriga haddaad qaadataan tuuga soo qabataan waa la idin xisaabtamaya ciidamadan aad maanta inay amniga iyo nabadgelyada muqdisho sugaan aad ka sugaysid waa ciidamadii aad sida tooska u oranaysay haddaad isku daydid amarka dawladda haddaad qaatid ood amniga sugtid waxa weeye bartaad joogtid iyo mustaqbalkaaga dhibaato u keenaysa waana lagugu imaanaya marka waxaan rabaa inaan idinka tago aad iyo aad hadalkan usii badin maayo laakiin waxaan rabaa amni darrada muqdisho ka jirto dad badan baa ku wareersan ma isbedel ka dhacayo ma tuugo cusub baa soo gashay maya xasan ciidamadan asaga amar siiyay inaysan amniga sugan ciidamadan inay waajibaad qaran ay fuliyaan xasan asaa amarka siiyay waxaan doonayaa klibkan inaan idinka tago oo daawataan waan idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu generaal odawa waa la leeyahay militariga la soo dhaqaajinaa intaa laga keenaa kana laga keenaa generaalow odawaayow wiilkaygiyow maanta maalintaad waxaas aqbali lahayd maaha saadiq jaan waddada uu fura kuu furan waddo kale oo kuu furan ma jirto mid kastoo kalood qaado haddaad aamusad gurigaa gadaal u gasha xataa